waxay dhahday gabadheeda 3 dalaaqad ay u furaysaa 30 garaam oo dahabana miiska ay saaraysaa gabadheeda midgaanta oo garaacdaana faraqa idin saaraa halkaas meesha ratiin ciri dhul kala dhaca ma idin baahnin mana u baahan doono wuxuu helayu ku dheelay dhamayskabadho akhlaaqle nin xumi misuu dhantaalay kadhaa waxay way quluubta dhigeed inaan qiima dheelka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال سواء قاهي مدن ملك ستوكتان سيكستو مقالكي مقالكي دين سو قال لك قد داونسان وجانا كشاع شاكي ولكن شاع شاكي كسر هذا برنامج كذا لين تبلشوا عاود كوجا هيو أرين أدول يا بدن ورنتي حقيقة ده أي تد بدن أي ود السوقيين أرين تصوح كلام معهن وجبر الصوماليات وطبعا هويا ويانا هم بتيك توك كقال الأمين يسي تاسو كدو ديسي إن جبر ديار أو يدشي حق العاق عيستي إسلام كان الصدوه ديت أي جبر أسيك حيستي جيسي ملك من الصومالية يدنا كسرون تاي ذلك يجوانا هذا بقى جبر أسي أرنت براه بالشدة آد بيوقفستي أرين تيدو maalmihii la soo dhaafna aad baa loo hadalhay dadka Soomaaliyeed doogan xay laakiin xaqiiqada jirta iyo wuxuu sida u dhacaanba inta dadku way ka caganayeen wana ka qarsoonayeen maadaama ay dhanka kale wax ka tabanaysa aysan soo hadlin hadaba waxa idin hayaa arin degdeg oo ku saabsan in gabadha dadka ay ku eedeynayso oo ilhaad gabadha aabaheed oo kale ay ku eedeynayso inay ka qaateen gabadhii oo soo hadlay afkana furtay xaqiiqo badan oo dadka qarsooneen oo banaanka keenay intaan ugu gudbin waxa sir link oo sina jilaageesa soo saarkan sidoo kale aad leeyahay dhacda muuqaalkan si uu gaar saaxiibo badan waaga saaxiibayaal hadaba dad aragtaan koofi guduudan oo ta wardegdeg baa idin sidaa arin runtii aad baraha bulshada la qabsatay oo ku saabsaneed gabar masaakiin ah oo TikTok dhawanaanba soo gashay isla markaana ku doodaysay in ay gabadheeda oo ay dhashay laga qaatay waana ka xumaaday runtii dadkii ka xumaadan kamid ahay dad badan baa arinta ugu jahwareeray dad badan baa soo qorayay xaqiiqada jirta dadku ma oga yaan lagu degdegin halka dadka qaarna ay u heelinayeen gabadhaasi waxay sheegatay inay ka maqan tahay gabar yar oo ay dhashay isla markaana si laga ka haysta qasabasi iyadoo ay sheegatay oo gabadhii loo ka haystay familkeeda ama tusaale kale gabadha aabaheed kale hooyadiis ay ka haysatay oo iyada asadoheed inkastoo ay sheegtay in aabaheed kala tageen gabadhaasi aad baa lagu weeraray arinteeda dadka Soomaaliyeed meel ay u raacaan way aqoon waayeen hase yeeshee arintaasi way soo afjarantay oo waxa xaqiiqo kale laga helay dhanka dadka ay ka tabanayso hadaba waxaan markan jeclahay inaan clip ka soo helo baraha bulshada oo arinta xaqiiqadeeda idinku ku talagalin wax badan ka ogaataan bal markan aniga idinkuba aan wada daawan clipkan ma ido kaligeed gabadha ma dhalin gabadha waa wada dhalnay abaa kaliya gabadha ma dhalin gabadha waa naga dhaxaysaa sidoo kale u sheegaa dhammaan dadka Soomaaliyeed intii aan aqoontaba u lahayn shakhsiyadeeda aadan ahaan habaaray ama wax iga sheegay qaldan intiinan xaqiiqa cabsi baa ka tihiin sababtoo ah aqoon la'aan ay idin geenaysa gabadhan ay leedahay waa laga soo xoogay waa xoogaa laga soo qaaday waa been meesha lagu soo qaaday ma joogin laakiin gabadheeda alxamdulillah waa haystaa xoogna cid wax uga soo qaatay male waxa fariista odayaal waxa fariista tol iyo tol waxay ku heshiiyeen in nolosha ay ku kala baxaan anagana gabadhoodii u furno meherkooda siino anna gabadheeda leeysiyo aniga mar badan adkaystay oo adkayso waayay maama waxa dhahay maalin kasta gabadhaadii ay ugu haysataa anna teeda faraq ku haysataa hadii gabadhaadii luul iyo dahab ku tahay anna teeda dhaman ay tahay haddii maalin kasta buuq waalidnimo xushmad jirin waalidnimo jirin maalin kasta faras taag tahay adani gabadhaada waa ku furaa anna gabadheeda ay siinay saas ku kala baxeena waxay dhahday gabadheeda 3 dalaaqad ay u furaysaa 30 garaam oo dahabana miiska ay saaraysaa gabadheeda midgaanta oo garaacdaana faraqa idin saaraa halkaas meesha ratiin ciri dhul kala dhaca ma idin baahnin mana u baahan doono waxa marqaati ka waalidkii dhalay waxa marqaati ka waalidkeed waxa wada fadhiyo odayaal iyo tolkii wax wada kala qaatay markay waayeen wada kale lagu heshiyo waxay go'aansadeen in gabadhoodii u furo hooyadeed waxay iga cusubtay in 3 dalaaqo hal mar gabadhi ku furo gabadheedina 30 garaam oo dahab ah u raaciyo si gabadheeda aan u helo waxay ahaataba gabadhii waan kala baxnay hadaba social media waxa barihi u dambeeyay ku soo badatay inuu noqdo maxkamad ay dadku isku daxweeyaan runtii waxay noqotay meel dadka dulman inta badan ay ku soo bandhigaan waxa markaas iyaga ka maqan runtii intuu ninkan soo hadlin oo san xaqiiqada banaankeen waxa maanta baraha bulshada ka jirtay arin aad hadalayn aad u balaaran ka dhalisay taas oo ku saabsaneed in gabadha yar ay dhashay oo ka haystay macnaha gabadha aabeed oo irbaan ay sheegtay inay kala tageen kadibna waxa xun baraha bulshada uu haystay
oo inta badan la dhex wareejinay sawirada yarkan hadda soo haday oo runtii aan jeclayn sawiradaas la wareejinay ay sawiradiisa ahaayeen baraha bulshada aad buu qabsaday runtii waxyaabaha igala ku badan waxay ahayd Soomaalidu inta badan waa iska seef labood iyadoo xalina xaqiiqo ka haysta ay inta badan waxay sameeyaan xukun go'aan ay ridaan hadaladii aad ku yaabka badnaa oo ninkan odaga lagu kalbaashay waxa kamid ahaa inkastoo hadda xaqiiqada iyo waxa uu sheegay aan dhigi karin waa xaqiiqo gabadha warkeeda aan xaqiiqo dhigi karin oo ay arintu u baahan tahay dad xaqiiqada og in aan sugno oo aan macnaha xog kala aan ka siino dheeraada haddana dadku waxa inta badan ninkan ku xaglinayaan waxay dhahayeen eriyay kamid yihiin oo kale waxa u soo dhacday hees isma laf qaad jirto ah nacasiya jeclaan jiray lamida aad baa ninkan TikTok lagu jafay maanta baraha bulshada laakiin waxa laga yaabaa dad badan markuu muuqaalkan soo gaaro in fikirkii markii hore ay ka aaminsanayeen ay xogaa iska yar bedelaan waxaan hadda ku suganahay duni runtii iyaduba si kala ah macnaha oo qofku ay fududahay inuu isla markii dambiile ka dhigi karo halka qof dambiile ah dambiile aan laga dhigi karo waxaan ku jirnaa dunia casriya oo tiknoolajiyada casriga la tilaabsanaysa isla markaana qof kasta ay fududahay inuu sidoo wax u dhaliilo qof kasta uu rabo inuu sidoo wax ugu sheego inkastoo ay qofku yahay hooyo oo sax iyo qaladba hooyadu ay saxan tahay taas waxa igu raaci kara oo dareemi kara qofku markuu dhibaatada ay hooyo naga soo martay dhamaanteen uu macnaha dareemi karo wixii jira ilaahay naga xaqiiqatan laakiin mar walba inagu waxaan nahay dadka inta badan la jiro hooyo oo hooyo u diirnaha sababtoo ah hooyo waa hooyo waxna laga sheegi karo waxna lagu imtixaami karo waxna lagu ciqaabi karo hadaba anaga maxaan la gudboon kamidiyaan waan jeclaa horta xaqiiqadan inaan aad baan aga gaabsaday arrinta siyaasad baa xogaa ku mashquulsanaa laakiin waa iska soo afjartay ilaahay wadda kale nabada naga dhigo laakiin arrintan way jirtay oo baraha bulshada aad baa looga hadlayay YouTube-kiga soo gelin waxaan u soo gelin waxay ahayd in aan bal un xaqiiqada ogaado oo arrintan wax ku saabsan ogaado kaliya waxa laga yaabaa inaan meel FB iyo